ciid mubaarak. Heestaasi oo astaan noo ah kuna soo horreefurayno kuna dambaysiinaya ilaa aan dhallinyarada Soomaaliyeed waa in dhaliilada ay ka baxayaan ayaa waxaan maanta rabaa inaan u sheego fishinka cusub ee aan ugu talagalay 3,000 oo shaqaale ah inay 2021 dhalinyarada Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku sugan ay ka bilaabaan magaalada Muqdisho iyagoo noqonaya golo madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo golaha baarlamaanka iyo agaasimayaasha dhammaan say ku dhici kartaa. Waxaan alifo ilaahay iyo istiqaara ayaan ula istaagaa. Waxaana xaqiiqatan cidda ka faa'iidaysato inay guula ka gaaraan sida oo aan la foqal. Waxaan doonayaa maanta inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan maanta abaabulo oo ciidda ay ka baxday maalin ciidna ay tahay 3 bilood kadibna halkan ayaan soo istaagi doonaa ku soo biir haddii aad dhalinyarada shanta Soomaaliyeed tahay islaam aad tahay qadiyadaadu ay tahay kitaabkii Ilaahay cadaalad iyo sinaan iyo Soomaalinimo shisheeye diid qabyaalad diid Itoobiya diid Kenya diid qadar diid Carab diid. Waxaan ahay Soomaali, waxaan ahay Afrikaan, waxaan ahay aadame wax u dhaxeeya aysan jirin. Waxaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waan hubaa waan ku guuleysanaysaan fadhigaad ka kacaysaan. Waxaan ololaha koowaad ee bilaabaya inaad hadda kasii qayb qaadato inaad soo noqoto xildhibaan ayaan rabaa. Seed ku soo noqon kartaa maskaxdii ayaan ku waqaya anigoo istiqaar iyo ducadeyda kula socoto jifa kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah waxaan ka codsanayaa oo dalka jooga barnaamijkan ugu magac darayo dhalinyarada hanashada dalka. Halkan ilagala soco tilaabo kasta qudhaha qaad qabiil kasta iyo jifa kasta oo Soomaaliya ah. Waxaan doonayaa inaad xildhibaanku ku soo baxdo seed adoon shilin bixinin waad awoodaa. Waa inaad hadda samaysaa jifa kasta oo dalka ku sugan maaha diaspora xilligooda Allah na gaarsiiyo 2021 waxaan ugu talagalay madaxweyne, ra'iisul wasaare, golo baarlamaan 3,500 ilaa agaasimayaal ilaa madaxda ugu sareysa saraakiisha dalka in ay noqdaan dal joogayaasha rasmiga ah ee 30 sano meel ugu bixin. Waan awoodnaa anigana inaan iska hadlin waxaan kugu xaqiijin karayaa arag maanta siyaasadda 4 sano ee soo dhisayay ee dimuqraadiyadda loo istaagay ee la diiday dulumka iyo diktaatoorka hayeesh. Waxaan maanta doonayaa in aan ku ballan qaado ilaahna aan ku baryo dhalinyarada dalka ku sugan inaad wax qabsato maanta laga bilaabo. Waa in aad jifa kasta oo dhalinyaro ah oo qabiilka ka soo tag jifa kasta aad la baxdaa dhalinta hanashada dalka u taga odaygiina mid soo xusha xildhibaanka kaasaan doonaynaa inaan ugu dhaarto dhaqanka Soomaaliyeed ee odayaasha la ixtiraamo ishiisa iska ilaali. Daalimkaasi dhiigiina wuxuu cabaqayay 30 sano uu soo xulanayay mana dhacaysa mar dambe inay taa dhacdo. Maantana waxaa yimid xaqlayaashii dhalinyarada ahaa ee odayaashan ay u isticmaalayeen dhiigooda inay daadiyaan oo isku diraan oo iska hor keenaan. Dhimashada inta badan waxaa iska leh dhalinyarada dheeftana odayaasha. Maanta waxaan rabaa inay dhalinyaradu dheefta qabsato dhimashadooduna ay yaraato. Igu taxnow ku soo biir qadiyadda TV iyo wiilkii oo soo laabtay ee ahaa lama arkaan oo muddo badan qaadka ka maqnaa. Waxaana intaa hore idin soo maamulayay wiilkii mucjisada isku haddana dhalinyarada hanashada dalka jifa kasta iyo aamin gruubkaasi samayso adiga iska ilaali. Markaan ku arko inay isticmaashaa laga yaabaa dowladda Soomaaliya oo ay kuwa ku soo darsato waxaa laga yaabaa mucaaradka idinkoo ka madax bannaan ayaa waxaan doonayaa in xildhibaanada Soomaaliyeed ee ay soo baxaan oo ay ku soo baxaan jifa kasta odayga u taga nin soo xusha ninna u soo caleema saar. Laga yaabaa inay isdhahdasay ku dhici kartaa laba anaa arrimahaas oo dhan kuwa xaqiijinayo. Waxaa jiro guddiga la yiraahdo guddiga saxiixda khilaafaadka ragga xildhibaanada loo soo doortay. Waxaan rabaa inaad odayga ku qasabtaan haddii odayga meelo kale uu kaga saxiixdo rag kale oo lacag ka qaatay idinka uu jifada matalayo
odayaasha kale way idin raacayaan iyo dadka sababtoo ah aabbahaa soo kaxaynaysaa adeerkaa soo kaxaynaysaa miidiyaha istaagaysan waxaa leedihin waxaan dooranay wiilkan anagoo jifadaas ah haddaba ninka ay soo dirteen iyo ninka uu shaqsiga odayga ah uu soo saxiixay marka khilaafaadka la saxayo anna halkanaan ka dhawaaqayaa waxay qasab noqonaysaa kaa bulshada badan ay wadatay in la raaco waxayna noqon doontaa mabda iyo taatiko cusub oo aan kaga takhalusayno odayaashan dhiiggeena iyo dhacaankeenna la haray ee dalka doonayo inay carruurtoodina dibidaha u dirsaday diyaasburahan nagu soo habaaray intaba waxaan rabaa maanta laga bilaabo jifa kasta oo dhallinyaraa u kac odaygaada usii sheeg ninka aa wadataanna guddi samaysta guddoomiye samaysta jifa kasta waa inay ku dhawaaqdaa dhallinyaradeeda ad ilaahayow aad jirta waxba barin haddaa rabto waxbaro adigay ku taallaa laakiin sannada 2021 hiigsiga doorashada waxaan rabaa inaad adiga hanato marka ay ii soo baxdo 375 markaa 10% odayaal ha noqdaano inta kale halkana waxaan idin fishinka gacanta idinkugu fiiqi doonaa hogaamiyaha dhabta ay Soomaaliya samata bixinayo ee uu ciilay waqtiga odayaasha iyo diasporaha iyo shisheeyaha dowladaha ah ee nala harayna halkaa ayaan ugu qabaynaynaa adiga ayaan rabaa fadhigaynaa ka kacdo jifa kasta oo Soomaaliya raas Gambooni iyo raas Xaseer waxaad samaysataa guddoomiyaha waxaan rabaa inaad samaysato guddoomiye iyo adigoo jifa iyo xog haye oo anuusada soo gashan dhalan waxaan nahay dhallinyarada hiigsiga hanashada dalka 2021 waxaana soo caleema saaraynaa in uu xildhibaanadeennada 3 idinku ah waa tartamaya mid ayaad go'aan ka sii gaaraysaan odaygana waa qasab hadduu diidana waad ku garab keenaysaan arrintan khatarteeda ayaa fara badan dowladda inay ka faa'iidaysataa ayaa fursadan laga yaabaa oo ay qanato laakiin qof kasta oo samaysto ururkaasayto si aad ugu banaanaataan odayaashan mucaarad iyo muxaafad sheeganaya dalka la haray iyo madaxweynahan diasporayaasha ah inuu nagu soo habaaray waxaan doonayaa inaad page-kan kusoo taxanto qadiya TV DKM halkan ayaan ka hogaaminayaa sumani kaama rabo shilin kaama rabo aqli nadiif oo ilaahay ku cabsidiisa iyo iimaanku dheehan tahay ayaan ku soo gudbinayaa fishinka iyo aragtidana ficilka adaa lagaga baahan yahay haddii aad caawa bilowdo bari bilowdo maalmahan aan arka facebookyada iyo newsyada oo la yiraahdo dhallinyarada hanashada dalka ayaa soo baxday jifa kasta oo Soomaali ah abaabul oo Soomaaliya is abaabulsho hadalkayga markaan maqasho 7 bari waxaan doonayaa in newsyada lagu arko dhallinyarada degmo kasta oo ku sugan tahay jifa kasta ka qaado waxaad leedahay si odaygaada aad ugu saxiixato oo xildhibaanimada u hesho inaad dhallinyaradaasi aad samaysato hanashada hiigsiga hanashada dhallinyarada hiigsiga hanashada 2021 sidaa daraateetana dhexdiina intaa isdoorataan halka xildhibaan aad rabtaan inuu idin soo galo iyo labada xildhibaanba iska soo dhex saara kaasi ayaana wax idin qaban doona sababtoo idinkaa soo saaray sumuni isagoon ku bixin baad soo saaraysaan xataa tan odayga guriga hortiisa ku qabsada hayeelina odayaashan iyo cabsidan ina gelin doona anaa halkan idinka hogaamin doona hadduu isku dayo inuu nin kala saxiixana midkaas ayaad ku dhawaaqan doontaan idinkoo bulshada dhan idin taageersan tahay iyo qabiilkiina haddaba waxaan kusoo gabagabeynayaa ciid mubaarak Soomaalida dhammaantiin waxaana kaloo idinkaga tegayaa qaystii oo aan kusoo gabagabeynayo xase aadan samatar ilaa aad ka kacdaan waa idin dhaliilay iyo heestii Kala aad socodaan
dhaliilay